السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحن سلام يا دمان كسوق بقرياشة قف كاستمقع وكفدي مقام كفدي إنكو سلام يا سي أنا ندد وقتين سلامتي انت سانكو أكيسنا يا وحن رباينا أوسي قدبو مرة بين نددك ورك كرسي داريو إنك استولي ورك أسجن لو دعين وسكب تالي فاتحة مرة الله بدي أصلا دهن وسكب تالي ورك تاسع ربعنا كسوكوبه حان ربعنا إراهدو ونقول مهد علينا يو قبل كبنادر حفلة قيمها بدن ونوسمي أسوكم مرتقى ذيو إرجعنا شرفت له دولة قبل هذه كيمت هذا نقول مهد علينا مركز تنو عن كارنا مدن قدومية سيدان يسلم مدينات نوسم يسوع حفلها نوعا وكلا وحان ربعنا عن إراهدو وحان به لها انت إيجا عقلي بنيد إيجا مسكح بنيد بهوري وتري مهمة وحواية من مدى إيو وذا جيركا ومدى الصوماليين إن لغا شقايو تاسع واحترس انت اسمر كان كسو قدبو حفلتنا waxaa loo dhigay dastuurka wax badan waa laga hadlay dastuurka aragti badan laga sheegay waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu noqdo kiina anfac waxaan rabaa inaan idhaahdo dastuurka hadda aan haysan oo ku meel gaarka ah waxaan rabaa inaan idin sheego inaad ogaataan dastuurkii 2012 ergada Soomaaliyeed ay ansixisay ma aha dastuurkii ergada 800 dheeraadka ay ansixiyeen 6 qofool oo markaas مثليسي دولة أي صحيحين ما أحد دستور كذا نايسن وعرب أنت هنا دوغاتان دستور كزميش وكبحين لوجاد الرب معايا لي دستور كاس وهو كان أوفي عن وبلش الصومال ده يسمى ستوها حقو هذا دستور كاس يا كدم بيالومي mid kan af ingiriis ku qoran af Soomaali u soo tarjumayaan haysana ma aha kii saxda ah waxaan rabaa inaan iraahdo asxaabta hadda noo qaabilsan ka shaqeynaysa dastuurka generaalka senatorka Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid oo gudoomiyaha u yahay saaxiibo sidii kii hor loo xadeen kan loo xadeen dastuurka hal ilaaliyo kii hore waa maqan yahay kii ergada Soomaaliyeed ay ansixisay ma aha kan aan ku shaqeynay hadii loo baahdana waa la heli doonaa dadka ka dambeeyay arrinkaas in dawla malihin aqli la'aan ma waa ogna intaas markaan kaga gudbo dastuurka muhiimad gaar ah u leeyahay wuxuu u baahan yahay qof kasta oo Soomaali ah inuu ilaaliyo loo baahan yahay maxaa yeelay dantaada maslaxadaada ku jirto qof aad dhigi karto adiga ilaalinaysa ma jirto qof kasta Soomaali inuu ilaaliyo loo baahan intaas markaan ka gudbo sababta keentay in loo waayo dastuurkii saxda ah ma garan karna waxa waaye dastuur annaga aan maalgashanayna ma ahayn waa dastuur dad kale ay maalgelinayaan qof kasta Soomaali وما سنتي قف كستو Soomaaliya gudaha jooga ama dibadda ha jooga dastuurka adinka iska leh maalgashta si aan lidin kaga xadin mar labaad hala maalgashto waxayna dhaqaalihi maskaxdii aqliga waxayna waxaan kari waynay inaan dastuurkan maalgashan aan u heli karno Soomaalinimada ku jirto
dastuurka aan maalgashanno. dastuurka ahmiyadiisa wax la soo koobi kara ma inta laga dhawaajiyey oo noocyo ayuu mathalaa oo wakiil ka yahay. waxaan rabaa inaan idhaahdo qof kasta oo dastuurkan ka cabanayso waa inay ka heshaa waxa ay ku leedahay meeshaas, asagaana isu keenaya bulshada. waxaan leeyahay xukuumadda oo hadda uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka nagala joogo, lacagta qoondada miisaaniyadda 2018 lagu daray, ahmiyadda koowaad waa inaad ka dhigtaan lacagtaas waa inaad bixisaan. lacagtaas waa in la bixiyo, aysan naqanin warqad wax ku qoran ay naqanin. lacagtaas waa in si dhab ee loo helaa. waajibkaasna adinkaa qaatay, waa inaad bixisaan lacagtaas. waana ka sugaynaa inay bixin doonaan, waa filayna. marka intaas ka gudbo, waxaa laga dhawaajiyey siyaasadda 2020. saaxiibkeen khadar wuxuu sheegay 2020 siyaasaddii ahayd in la soo hagaajiyey. waxaan rabaa marka inaan idhaahdo sida ugu dhaqsida badan waa inaad u soo gudbisaan golayaasha sharci dejinta. ma aha mid adinka idinka bilaaban adinka idinku dhammaanaya, ma aha mid guddiyada keliya ku eg. waxaan rabnaa inaan aragno siyaasadda ayadoo qeexanaan rabnaa inaan aragno wax ay tahay. waa in laga heshiiyaa siyaasaddaas 2020 maxay tahay. annagaa samayna, annagaa gacanta ku aan idinkama yeelayn. xukuumadda waxaan ka rabnaa ayadoo la tashatay dowlad goboleedyada, guddiyana u saaratay oo ognahay ka soo shaqaysa. waxaan u fadhinaa hoolkii halkaas ah hadduu ilaah yidhaahdo, waa sugaynaa. ma aha waa mahadsantihiin. adinka waxaad leedihiin siyaasadda inaad soo jaangoysaan, inaad noo keentaanaad leedihiin. sharci dejinta iskale, labada golaa iskale. siyaasadda 2020 meeshii la aadi lahaa, qaabkii loo aadi lahaa waa in golayaasha sharci dejinta ay dejiyaan. waay labada gola sharciga isku raacaan, kaasaa doorasho naqanaya. guddiga doorashadana siyaasaddaas marka laga heshiiyo wixii ay go'aamiyaan oo la yidhaahdo doorashada waa noocaas, taasay noo qabanayaan, ayaga nooma dejinayaan siyaasadda. waa inaad ogaataan horta siyaasaddu waa mahadsantihiin. aadaan idinkaga mahad celinayaa dhiirigelinta samaynaysaan. waa mahadsantihiin. gudoomiye gobolka Banaadir duqa magaalada si gaar ah loo eego haweenka hawshan wanaag badan sameynay. waa mahadsantihiin. waxaan rabaa markii inaan idhaahdo siyaasadda 2020 hadday idinka soo dhammaatay xukuumadda, haddii aad tihiin la tashigii dowlad goboleedyada idinka soo dhammaatay, waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha leh inaad noogu soo gudbisaan, annagana waajibaadkan aan ka gudan. waxaa la rabaa 2020 siyaasadda mid la haadiyey inay noqotaan rabnaa. ma rabno mid dowladda yeelato oo golayaasha sharci dejinta lagala cararo mid inay noqoto ma rabno. xukuumaddu shaqaale la dirsaday waaye, waa inay noo keenaan shaqadan u dirsan. waa inay noo keenaan wixii aan ka sugayn, sida bulshada, si aan bulshada Soomaaliyeed oo wakiilka kan ah ay u ogaadaan meesha ay aadi doonto doorashada 2020.
waxaan leenahay wax badan waxaa dhigahana ku soo dhacay golayaasha sharci dejinta shaki inay ka muujinayeen arrinta iyada ah in badanna loo sheegay guddiyaha la saaray maamul goboleedyada xukuumadda iyo dowlad goboleedyada samaysanaya 2020 qaabkay doorashadana qalahayd waxyaalahaas waa maqlayni laakiin waxaan rabaa caawa inaan u xaqiijiyo golayaasha sharci dejinta waxaan adinka idiin soo maray inaysan sharci noqonaynin cidna kama ogolaanayno in la iska socdo wixii raba la samaysto cidna kama yeelayn baashu meel ay leedahay meel ay ka bilaabata meel waa ku dhammaata xukuumadda waxaan leenahay bilowga leedin dhammaadka annaga iska leh ogaada saas hadda nagula shaqaynaysa waa idiin soo dhaweynay hadda nagula shaqayn waaysan shaqa idinka qabanayna ma lusu qarinaayo warka saxdaan aadayna annaga duulaan idinkuma nihin laakiin ilaaliya sharci dejinta xuquuqda ay leeyihiin iyo in ay yihiin shuruucda dadku ugu dambeeyo oo meel marin ayaga yihiin waxaan rabaa marka inaan idhaahdo adinkoo mahadsan waxba ayaan warkii idinku dheeraynin abukaatihii cashadii uu sheegayaan rabnaa inaan aadno quruxda badnayd ee guddoomiyaha gobolka uu noo diyaariyey waana mahadsantihiin warkaasaa iska badanaysaan sheegay waay in la soo celiyo ma ogi ma istaagayo anigana dadka ugu hadalka yaraan bahaaba sidan hadda aan ku hadlayo waxaan leeyahay xaflad wanaagsan soo dhoweyn wanaagsan guddoomiyaasha dowlad goboleedyada waxaan filayaa inaad aragteen quruxda iyo sida wanaagsan ay idiin soo dhoweysay caasimadda muqdisho duqeedana uu idiin soo dhoweeyey sidaasoo kale adinka lidinkaga baahan inaad u soo dhoweyn doontaan adinkoo mahadsan waxaanu mahad celinaynaa karaamada iyo sharafta ay noo yeeleen caawa cabashada ay soo jeediyeen maqaamka magaalada muqdisho aragti gaar ee fiiro gaar in lagala hado waa sax waana aaminsannahay waana waajib muqadasa arrinkaas in dib loo eego maqaamka magaalada muqdisho kelima beelo Soomaaliyeed wax ka maqan yihiin jira waa in la fiiriyaa dastuurkaas yaa ka maqan yahay wuxuu dhimay in la dhaawaa dastuurku waa kii dejin lahay dalka kii dalka dejin lahay أنا ده هاي مقيين أنا راح عبد القيد كاب أنا واحد هاي مقام ماشي صح هاي قدمه وأنا ودي جيستا رأي جيجا وأنا كرسوني ده وحكينا يكملته ومع سنتين صود وهذا وحبنا ربنا إراده مركل هذه دونا دولين جارسي لكن هل ولا يدي شيء هذا كور ماشان مران كهذا وحالي ده كسماته هذا كسمات دليل غير ما كبيح دونا كسمني ملا ومع سنتين السلام عليكم ورحمة الله